عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. On the authority of Abu Hurairah radiyallahu anhu, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said: Allah, the Almighty, is good and accepts only that which is good. And verily, Allah has commanded the believers to do that which He has commanded the messengers. So the Almighty has said: O you messengers, eat of the tayyibat, all kind of halal legal foods, and perform righteous deeds. And the Almighty has said: O you who believe, eat of the lawful things that we have provided you. Then he, sallallahu alayhi wasallam, mentioned the case of a man who, having journeyed far, is disheveled and dusty, and who spread out his hands to the sky, saying: O Lord, O Lord, while his food is haram, unlawful, his drink is haram, his clothing is haram, and he has been nourished with haram. So how can his supplication be answered? Narrated by Muslim. Waxaa laga wariyey Abu Hurayra eebbaha ka raalli noqdee inuu yidhi: Rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi: Ilaahay waa tayyib, fiican yahay, mana aqbalo waxaan wanaag ahayn oo xalaal ahayn. Eebbana wuxuu faray mu'miniinta siduu uu faray rususha. Ilaahay wuxuu yidhi: Rusuladuu ka cuna wanaagga xalaasha ah, camal fiicanna fala. Allah wuxuu yidhi: Kuwa xaqa rumeeyow, ka cuna tayyibaadka wanaagga idinku arsuqnay. Dabadeedna wuxuu xusay Nebigu sallallahu alayhi wasallam ninka safarka dheer ee rafaadsan ee boodhka leh. Gacmihiisii wuxuu u fidiyey xagga samada: Rabbiyow, Rabbiyow, cuntadiisuna waa xaraan,
cabitaankiisuna waa xaraan, dharkiisuna waa xaraan oo si xaraan ah loo quudiyey, sidee ducadiisu loogu jawaabi doonaa? Muslim ayaa wariyey xadiiskan.